بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما إسنينه أو تلادة أي سو جليسو أفريا لباتن كبشة أغسط سنة لبكن لباتن يلح أو كوباغن كوب يتبن كبشة ربيع الأول سنة كن أفر بقول أفرتن يسيديد تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي قبانها قضبضا أريد كوهيننا وحا كمدا ruushka oo si cad u sheegay in ingiriiska uu qayb ka yahay dagaalka Ukraine isagoo jeediyay digniin arintaasi la xiriirta ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo shaaciyay war weyn oo ah in Iran ay isku dayday inay disho mid ka mid ah wiilasha uu dhalay ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo shaaciyay in ay burburin doonaan dhammaan goobaha shidaalka ee gobolka bariga dhexe iyo danaha Mareykanka haddii la soo weeraro kaabayaashooda dhaqaalaha Trump oo ku andacoonaya in Mareykanku uu ku guuleystay xaaladda iyo dagaalka uu kula jira Iran iyo sidoo kalena cid kasta gudoomiyaha baarlamaanka Iran oo Mareykanka ku eedeeyay in uu yahay xudunta gobolka bariga dhexe mushkiladda ka jirta Mareykanka oo daboolka ka qaaday in Syria uu ka saaray liis ay ku jiraan dalalka la dayriyay sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay waxaan idin haynaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan kubad hadda waa kubad lagu kala iibsaday in ka badan $3 milyan dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qobanaha soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda dhanka diblomaasiyadda ee ka dhex aloosan ruushka iyo ingiriiska ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo ruushka horay ugu dhawaaqay in uu yartay safiirkiisii u fadhiyay magaalada London ayaa dhinaca Moscow waxa ka soo yeeray war weyn haddaba aynu eegno war ay qortay wakaaladda wararka Sputnik ee laga leeyahay waddanka ruushka aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalka ruushka ayaa ku eedeeyay ingiriiska inuu si toos ah uga qayb qaadanayo dagaalka Ukraine iyadoo taageerana uu siinayo Ukraine isla markaasna uu carqaladaynayo sida hadalka loo dhigay dadaalada lagu doonayo in xal nabadeed looga gaaro colaadda afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Moscow ayaa dadka wararka fidiya waxa uu sheegay in London ay si joogto ah u taageerayso Ukraine isla markaasna ay si hurinayso dagaalka Britain waxay dagaalkan uga qayb qaadanaysaa iyadoo la safan dhinaca maamulka Kiev waxay si nidaamsan oo joogto ah shidaal ugu sii shubaysaa dab ayuu yiri Peskov hadalkiisa ayaa ku soo beegmaya xilli maanta ra'iisul wasaaraha Britain Andy Burnham uu booqday magaalada Kiev halkaasi oo kaga dhawaaqay in Britain ay sii wadi doonto taageerada ay siinayso Ukraine si ay u horumariso gantaalada ridada dheer iyadoo laga faa'iideysanayo macluumaad la xiriira qaybo ka mid ah gantaalada loo yaqaan Storm Shadow iyo Scab oo Britain iyo Faransiisku ay farsameeyaan Kremlinka ayaa sheegay in tilaabadaasi ay sii kordhin karto xiisadda dagaalka Peskov ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in ciidamada ruushku ay baarayaan goobaha lagu farsameeyo gantaalada iyo qalabka kale ee military ee Ukraine isla markaasna ay qaadayaan tilaabooyin lagu burburinayo xarumahaasi isagoo ka hadlayay weerarada diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee Ukraine ay la beegsanayso kaabayaasha ganacsi ee ruushka oo ay ku jiraan baqaaro ay leeyihiin shirkadaha Ozon iyo Wildberries Peskov waxa uu sheegay in weeraradaasi aysan wax weyn ka bedeli doonin xaaladda furimaha dagaalka jawaabaha ruushka ee weerarada diyaaradaha aan duuriyaha lahayn waxa Kiev laga dareemaa maalin kasta iyo habeen kasta waana la dareemi doonaa ayuu yiri afayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov Ukraine ayaa muddooyinkii dambe waxay kordhisay
weerarada loo adeegsanayo dayuuradaha droniska oo lagu beegsanayo xarumaha warshadaha iyo saadka ee ku yaala gudaha dalka ruushka. waa hagaag warkana inta aynu kaga gudubno imikana xagga Washington aynu eegno oo uu ka soo yeeray war weyn oo la xiriira arrimaha Syria. wakaaladda wararka ee AP ayaa warbixintan qortay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in Syria ay ka saartay liiska lagu tilmaamo inay gardaadiyaan waxa loogu yeero argagixisada, iyadoo tilaabadan ay qayb ka tahay qorshaha madaxweyne Donald Trump ee lagu qafiifinayo cunaqabataynta saarnayd Syria. waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Syria aysan hadda hoos imaanayn xayiraadihii la xiriiray dalalka ku jira liiskaasi. Washington ayaa sidoo kale ka noqotay aqoonsigii argagixisinimo ee horey loogu aqoonsaday jabhadda al-Nusra oo sidoo kale loo yaqaan Hay'at Tahrir al-Sham ama HTS. kooxdaasi ayaa laga saaray liiska shakhsiyaadka iyo hay'adaha hantidooda la xanibay. HTS waxay ka mid ahayd kooxihii hubaysnaa ee sida weyn ula dagaalamay ciidamadii Bashar al-Assad intii uu socday dagaalka Syria. kooxda waxaa hogaaminayay madaxweynaha waddanka Syria Ahmed al-Sharac al-Julani oo noqday madaxweynaha Syria kadib markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad. isbeddelka siyaasadda Washington ayaa daba socda ridistii dowladdii Assad ee bishii December 2024 iyo dadaalada maamulka cusub ee uu ku xasilinayo dalkaasi Suuriya. waa hagaag warkaasna intaa aynu kaga gudubno waxaanu gudbaynaa goordhow war weyn oo dhanka Israa'iil ka soo yeeraya. Netanyahu wuxuu leeyahay wiilasheeda mid ka mid ah Iiraan ayaa qorshaysay inay disho. waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee caawa soo dhacay ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan. hanjabaado dhanka Iiraan ka soo yeeraya iyo Trump oo ka andacoonaya in cid walba oo Iiraan ay ku jirto ay ka guuleysteen. waa si hadalka u dhigay. intaan u gudbin wararkaas iyo sheekadii ugu dambeysay oo xiise gaara leh aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada markale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Telegram. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag waxaan u gudbaynaa haatan wararkii ugu dambeeyey xiisadaha Mareykanka iyo Iiraan ka dhex aloosan, gaar ahaan war weyn oo ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump aynu ka hormarno. warbaahinta waddanka Mareykanka ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweyne Trump uu ka hadlay qorshaha Mareykanka ee la xiriira cunaqabataynta lagu soo rogay Iiraan ee dhaqan gashay caawa. waxaana markaasi jirta in uu ku faanayo in Iiraan iyo sida hadalka u dhigay cid walba ay ka guuleysteen madaxweynaha Mareykanka. Trump ayaa waxa uu sheegay in markaasi weeraro afka ah ay qaadayaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga, laakiin wuxuu yidhi cid walba oo Iiraan ay ku jirto waa aynu ka guuleysanay. qoraal uu ku daabacay barihiisa bulshada, Trump ayaa ku eedeeyey dimuqraadiyiinta inay faafiyaan ra'yi ururino oo ku tilmaamay been abuur si niyadda looga jabiyo taageerayaasha jamhuuriga ka hor doorashada koongareeska ee bisha November dhici doonta. Trump ayaa waxa uu sheegay in ra'yi ururinta dhabta ah ay muujinayso natiijooyin wanaagsan, isla markaasna niyadda shacabka Mareykanku ay sarreyso. waa sida hadalku uu yiri. waxaan ka guuleysanaynaa cid walba oo Iiraan ay ku jirto, ayuu yiri Trump, isagoo ku andacooday in Iiraan ay wajahayso xaalad dhaqaale iyo mid military oo sii xumaanaysa. haddaba inkastoo Trump warkaasi uu ka soo yeeray, ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa ku hanjabay inay weeraro culus ku qaadi doonaan goobaha muhiimka ee tamarta iyo danaha Mareykanka haddii la weeraro kaabayaasha muhiimka ee Iiraan. afhayeenka ciidamada IRGC Xuseen Muxibi ayaa waxa uu sheegay in weerar kasta oo lagu qaado kaabayaasha Iiraan uu horseedi doono jawaab lagu beegsado danaha muhiimka ee Mareykanka, sida ay baahisay warbaahinta dowladda Iiraan ee IRIB.
muxibi ayaa waxaa kale uu sheegay in qaar ka mid ah yoolalka maraykanka uu ku jiro dib u furista marin biyoodka hormuus waxaana uu sheegay taas inaan lagu guulaysan waxaa intaasi ku daray in wax soo saarka hubka iiraan uu ku socdo meeshii ugu sarraysay waxaana uu tilmaamay in ay tahay tillaabooyinkani kuwa cadowga uusan u adkaysan karin si ka duwan sida cadowga u malaynayo wax soo saarka gantaaladayada casriga ah ee lahago waa ay sii socdaan ayuu yidhi muxibi isla wararka iiraan guddoomiyaha baarlamaanka waddanka iiraan ahna madaxa ergada wadaxaajoodka maxamed bakhir khalibaaf ayaa taliyaha ciidamada bakistan generaal caasim munir waxa uu kala hadlay khilaafka u dhexeeya tehraan iyo washington sida ay sheegtay wakaaladda wararka maahir ee iiraan laga leeyahay khalibaaf ayaa ku eedeeyey maraykanka inuu jebiyey ballanqaadyadii la xiriiray hirgelinta heshiis isaafagarad oo iiraan lala gaaray bishii juun kaas oo ay dhexdhexaadiyeen qatar iyo bakistan jebinta ballanqaadyadiisa maraykanku waxa uu hor istaagay xasiloonida gobolka wuxuuna abuuray sabab kale oo kalsooni darro ah ayuu khalibaaf ku yidhi munir ayaa dhankiisa waxa uu tibaaxay inuu sii wadi doono dadaalada lagu soo celinayo xasiloonida gobolka ilo xoggaal ah oo ku sugan washington ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne donald trump uu toddobaadkii hore telefoonka kula hadlay caasim munir kana codsaday inuu saamayntiisa u adeegsado dib u bilaabidda wadaxaajoodka iiraan waa hagaag wararkaasina intaa aynu kaga gudubna markaan waxaynu eegaynaa dhanka israa'iil oo war weyn uu ka soo yeeray netanyahu baa wuxuu leeyahay iiraan baa waxay damacday inay disho mid ka mida wiilasha u dhalay haddaba aynu eegno warbixintan oo warbaahinta israa'iil ay si weyn wax uga qorayso ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa ku andacooday in iiraan ay isku dayday inay disho mid ka mid ah labadiisa wiil balse ma uusan sheegin midka uu yahay iyo sidoo kale faahfaahinta isku dayga la sheegay iiraan inay ka dambaysana waa uu ka gaabsaday waraysi telefoon oo uu siiyey telefishinka kanaal 14 ee israa'iil laga leeyahay ayaa netanyahu wuxuu yidhi arrin aan la rumaysan karin ayaa dhacday iiraan waxay bartilmaameysatay mid ka mid ah wiilashayda waxayna isku dayday inay disho hadalkiisa ayaa yimid xilli laga hadlayey warar sheegaya in hay-adaha amniga gudaha israa'iil gaar ahaan shimbet ay diiday ilaalo amni in loo fidiyo gadi asankot oo ah taliyii hore ee ciidanka israa'iil iminkana ka mid ah musharaxiinta doorashada 27 oktoobar dhici doonta netanyahu ayaa taageeray in asankot la siiyo ilaalin 24 saac isagoo sheegay in tallaabadaasi aysan ahayn raaxo balse ay muhiim u tahay ammaankiisa netanyahu wuxuu leeyahay 2 wiil iyo gabar wiilkiisa curadka ah yaa'ir netanyahu oo 35 jir ah ayaa muddo dheer ku sugnaa Miami tan iyo horaantii 2024 waxaana la sheegay in halkaasi uu ku leeyahay ilaalo ka tirsan shimbet joogitaanka yaa'ir ee maraykanka ayaa israa'iil ka dhaliyey dood ku saabsan qarashka ilaalintiisa wariye amit zagal oo ka mid ah wariyaasha israa'iil ayaa waxa uu sheegay in isku dayga dilka la sheegay la ogaa bilo balse lagu soo rogay amar mamnuucida in la faafiyo waa hagaag ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka iiraan oo la xiriira eedeymaha ka imaanaya netanyahu ee la xiriira iiraan inay isku dayday inay disho wiilka uu dhalay waa hagaag haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka ayaynu ku soo gabagabayn jirnay anaag waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen sheekadan waxay ku saabsan tahay kubad haddaba haraggaas ti garoonka la geeyo 11 nin marba dhinaca u eriyoonayaan waxaa laga bixiyey lacag $3 milyan ka badan laakiin kubaddan waa kubad taariikh leh ciyaaraha adduunka ayaa lagu ciyaaray 86 haddaba aynu eegno sheeko arrintan ku saabsan waa tahay kubaddii ciyaaryahanka Diego Maradona uu ku dhaliyey goolkii caanka ahaa ee gacantii nasiibka kulankii Argentina iyo England ee ciyaarihii koobka adduunka 1986 ayaa lagu iibiyey xaraash lacageed oo dhan $3 milyan iyo $300 oo kun oo dollarka Mareykanka shirkadda Heritage
ayaa sabtidii waxay xaraashtay kubaddaasi inkastoo qiimaha lagu iibiyey uu aad uga hooseeyey qiyaastii la qiyaasayay ee ahayd $10 milyan oo la saadaalinayay kubaddaasi in lagu kala iibsan doono. Maradona ayaa goolka muranka dhaliyey ee gacanta uu ku dhaliyey ciyaartii wareegga 8 isagoo kubadda dul marayey goolhayihii Ingiriiska Peter Shilton. Argentina ayaa 2-1 ku badisay ciyaartaasi. Daqiiqada kadib Maradona wuxuu dhaliyey gool kale oo 5 ciyaartoy oo Ingiriis u dhex maray goolkaasi oo loo aqoonsaday goolkii qarniga. Garsoorihii reer Tunisia Ali bin Nasser oo ciyaartaasi dhexdhexaadinayay ayaa kubaddaasi haystay in ka badan 30 sano ka hor intii uusan iibin 2022 wuxuuna ku iibiyey $2,370,000. xaraashkan cusub ayaa kubadda waxa uu gaarsiiyey in sidoo kale fanaanadii uu ku ciyaarayay Maradona ciyaartaasi sanadkii 2022 lagu kala iibsaday $7,100,000 Mareykanka. haddii waa fanaanadaas uu gashan yahay Maradona $7 milyan. haddii laakiin looga sheekeeyo oday midug jooga wuxuu leeyahay waa dad kibray ma haraggii nimanku eryoonayeen miyaan ka bixinaynaa buu ku leeyahay $3 milyan mise fanaanadaas ninkaasi uu watay baa $7 milyan lagu kala iibsaday. waa sheeko la yaab leh. waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.